التوصل وطلب الشفاعة. meeshan wuxuu ku gudgalay mu'alifkeen wax loo yaqaano tawasul iyo طلب الشفاعة shafaaca in la dalbado. wuxuu leeyahay bimaada sheegayba نتوصل أن كتوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى حقيسه. wuxuu yiri التوصل توصلك منه حاكمدا جائز mid banaan iyo mamnuuc iyo mid la diiday aan la ogoleen ayaa kamid ah. wuxuu yiri marka التوصل توصلka الجائز banaan iyo المطلوب oo la doonayo هو أسيق وحاوي التوصل إن لغو توصله بأسماء الله سبحانه وتعالى مقعيديس وصفاته وصفات كيس يو العمل الصالح يو عمل كوناكسن. قال تعالى الله سبحانه وتعالى وحير ولله الله سبحانه وتعالى وحاوسقنا الأسماء ومقعيدي الحسنى أقوناك بدنا فادعوه بها كبري وكتوغا. وقال تعالى الله سبحانه وتعالى سيدوك الوحير يا أيها الذين كبي آمنوا حق رميو اتقوا الله سبحانه وتعالى كبقى وابتغوا راذية إليه الله سبحانه وتعالى حقيسة الوسيلة مد إذن دويس الله سبحانه وتعالى حقيسة وسيلة محلول الجيدان أقول دواد الله سبحانه وتعالى إليه حقيسة بطاعته طاعته سيقول دواد والعمل عملك بما عملك سيرضيه الله سبحانه وتعالى رالوك يهي. ذكره وحاشيغي ابن كثير يا شيغي نقلا أسيغو كسو قورنا عن القتادة. وقال صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم وحير أسألك وأن كويدي سنة إلهيو بكل اسم مقع والبو كاسو هو أسيق لك أدو كو سقناد أيان كويدي سنة وي يو وقوله يو أرادس النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وكيري الذي كاسو سأله أويدي والنبي أويدي استي مرافقته لجرن كيسينو هذا الجنة جنة لحظة وحوكير النبي صلى الله عليه وسلم أعني يقول كالمي على نفسك نفسدا دوشد بكثرة سجود بديد او كلمه سجود بدوي اي صلاه بد وهي ايضا من العمل الصالح عمل كوناكسن اي كمid tahay. marka meeshan wuxuu leeyahay mu'alifkeena maxaan ku tawasul karnaa. tawassulku waxa la yiraahdaa wax Allah subhanahu wa ta'ala aad ku gaartid aad ku tawassulaysid. marka Allah subhanahu wa ta'ala aad baryayso marka tuugayso wax aad ku tawassulaysid Allah subhanahu wa ta'ala aad u maraysid ayuu ula jeedaa. maxaan Allah subhanahu wa ta'ala ugu tawassul karaa aan u mari karaa. marka wuxuu leeyahay marka tawassulka minhu jaa'iz wa mamnuuc. waxaa jiro laba tawassul midna waa la ogol yahay wuu banaan yahay midna waa mamnuuc. wuxuu marka tawassulka oo banaan oo hadana la doonayo wuxuu yahay qofka inuu ku tawassulo Allah subhanahu wa ta'ala magaciidiisa iyo sifaadkiisa iyo amalka wanaagsan. Allah subhanahu wa ta'ala magaciidiisa inaad ku tawassushid inaad tiraadid ya Allah يا حي يا قيوم إنها ترى أتكون توسشت أتوقتد أو أتكون بردد مركزي والله أقول لي هاي يو حاكم ذا الصفات كي سوكلا الله سبحانه وتعالى صفات إنها ترى إله من ضافت بدن آياتا إيه ضاف إله من نحريس بدن آياتا إيه نحريسه. مرك الله سبحانه وتعالى صفات كي أتكون توسليسا وعد أمريسا إنها تكون توقتد يو العمل الصالح عمل كوناكسن إنها تكون توسشت أسجن والله أقول لي هاي سيدي صلاة أوكلا sidii soonka oo kale waxaad leedahay ilaahay salaadan aan tukaday dartaada aan u tukaday ilaahay salaadan sababteeda dambiga igu dhaaf ilaahay salaadan sababteeda waxaan igu sii. marka salaadaadi amalka wanaagsan Allah subhanahu wa ta'ala sababtiisa u qabatay ayaad ku tawassulaysaa. waxaan u daliilay Allah subhanahu wa ta'ala orahdiisa uu leeyahay walillahi al-asmaa'ul husna fad'uuhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu sugnaaday magacyo wanaagsan ugu wanaagsan ee magacyadaas ku tuu oo ku baryo. sidoo kale wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala kuwi Allah subhanahu wa ta'ala rumeeyo wabtaguu ilayhi alwasiila. Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa u raadiyo oo ka dalbada wasiilo shay idin gaarsiyo. maxaa loola jeedaa waa Allah subhanahu wa ta'ala magaciisa iyo amalka wanaagsan iyo sifaadkiisa weey. wuxuu yiri marka asigoo tafsiirina alwasiila ay taqarrabu ilayhi Allah subhanahu wa ta'ala ugu dhawaada bitaa'atihi taa'adiis wal amal as-salih amalka wanaagsan bima yurdi wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala raali u yahay. waxaana sheegay hadalkan ibn Kathir asagoo ka soo goornay qataata. nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam as'aluka bikulli ismin huwa laka. Allah subhanahu wa ta'ala asagoo tuugay wuxuu leeyahay ilaahay wax baan ku weydiisanayaa waxaan kugu weydiisanayaa magac walba adigu kugu sugnaad ayaan kugu weydiisanayaa way. sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri saxaabigii markuu weydiistay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu jannada maciisa ahaado. saxaabi baa nabigu ku yiri sal wax weydiiso. nabiga dhahay saxaabi ayuu ku dhahayaa wax ay weydiiso. markaas saxaabigu wuxuu weydiisay wuxuu yiri rasuulka ilaahay inaan jannada kula galaa rabaa inaan jannada kula saaxiibaan rabaa la jirinkaada aan ahaado. markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri
waxaad igu kaalmeysaa sujuuda badan igu kaalmeey, markaas jannada waad helaysaa. marka sujuuda badan igu kaalmey markuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ula jeedaa salaada iyo camalka wanaagsan ku dadaal wey, taasaa ku gaarsiinaysa oo wasiilo kugu noqonaysa. wayajuusu marka wuxuu leeyahay wayajuusu waxaa banaan atawasulu in lagu tawasulo bixubbina jaceylkeena iyo wa xubbillaahi allah subxaanahu watacaala jaceylkiisa lirasuuli rasuulku u qabo awliya iyo awliyada. waa ka qisatii sidii qiso oo kale asxaabu lgaari asxaabtii godka qisadooda oo kale weye, aladiina kuwaasoo tawasaluu ku tawasulay bicamaalihim acmaashooda alsaalixati wanaagsan oo fafaraja allah markaas uu ka feeday uu ka qaaday canhum ayaga xaggooda. meeshan wuxuu leeyahay waxaa banaan jaceylkeena iyo jaceylka allah subxaanahu watacaala uu u qabo rasuulkiisa iyo owliyadiis in lagu tawasulo karo, oo inaan dhihi karno ilaahay oo jaceylka aan jecelnahay nebigaaga iyo jaceylka adiga aad jeceshahay nebigaaga, ilaahay oo jaceylka sababtiis waxaan igu siiy inaad dhihi karto. waayo jaceylka nebiga aad jeceshahay waa camal wanaagsan wey. allah subxaanahu watacaala jaceylkiisana oo nebigiis uu jecel yahay waxbaa kaga dalban kartaa, ilaahay ow jaceylka nebiga aad jeceshahay sababtiis wax igu siiy, ama jaceylka aan jecelnahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. tusaale ayuu soo qaatay wuxuuna ku tusaaleeyey asxaabulgaar qisada oo kale wey. asxaabulgaar waa 3 qofood oo dadkii naga horeeyey ah. habeen bay socdeen, god bay galeen, godkiibaa wuxuu ku xirmay oo afkiis uu xiray dhagax ayuu xiray. markaas waxay yidhaahdeen qof walba camalkiisa wanaagsan uu qabtay ha ku tawasulo. marka mid walba wuxuu ku tawasulay uu sheegtay camalka wanaagsan uu qabtay. markaasaa mid walba markuu camalka wanaagsan uu sheego uu yidhahdo ilaahay oo camalkaas wanaagsan sababtiisa godkaa naga badbaaday, qeyb baa foqaysay oo qeyb baa furmaayay godka afkiisa. marka saddexdood waxay ku tawasuleen camalkooda wanaagsan, godkana sidaasay uga soo badbaadeen. wuxuu yidhi atawasulu mamnuuc, tawasulka marka la diidan yahay oo aan banaaneyn wuxuu yahay wahwa kaas waxa waaye ducaau lamwaati kuwa geeriyooda in la tuugo wey, wa talabu lxaajaati iyo in laga dalbado xaajooyin minhum ayaga xaggooda, kamaa huwa waaqicu lyowm sidii maantaba ay dhacaysa oo kale, oo dad badan dadka geeriyooda ay tuugayaan oo dan iyo xaaje ay ka raadsanayaan. wahuwa kaasna shirku lakbar waa shirki u weyn wey, liqowlihi tacaala allah subxaanahu watacaala oradaas u daliila laa tadcu ha baryin oo ha tuugin min duuni illahi allah subxaanahu watacaala sokadiis maa shay laa yanfacuka waxba aan kuu tarayn walaa yaduruka aanan ku dhibaynin. fain facalta haddaad samayso fa inaka adigu idan marku min aldaalimiina kuwa daalimiinta ayaad ka mid tahay, ay mushrikiin wey xaggaanu kusoo marnay. marka meeshan wuxuu leeyahay tawasulka mamnuuc waxaa loola jeedaa waa in la baryo kuwa geeriyooday oo dana la weydiisto layihahdo ii gargaar, waxaa noo qabta, waxaa noo samey in la yihahdo wey. sidii hadda maanta ay jirto dad badan oo tuugaayo dadka geeriyooday qubuurta ku booqanayo, waana shirki ugu weyn wey kaasi oo diinta looga baxo. allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waxaan waxba kuu taraynin oo waxna kuu anficaynin allah subxaanahu watacaala sukadiis ha barin, allah subxaanahu watacaala tuug. haddaad samayso mushrik baa tahay wey. ama tawasulu ama tawasulka bijaahi rasuul sala allahu calayhi wasalam, nabiga sala allahu calayhi wasalam jaahis in lagu tawasulo ka qowlin sidii qofka orahdiisa uu yidhaahdo yaa rabbi rabbiyow bijaahi muxamadin nabi maxamed jaahiisa iyo wejigiisa ishfiini igu caafi inuu yidhaahdo, fa haadaa midaan bidcatun waa bidca wey. lianna asaxaabata maxaa yeele saxaabada lam yafcaluuhu maysan sameyn. walianna cumarna tawasula wuxuu ku tawasulay bilcabaasi cabaas uu ku tawasulay xayan asigoo nool biducaahi ducadiisa, walam yatawasul muusan ku tawasulin birasuuli rasuulka bacda mowtihi geeriis kadib. wa haada tawasulu tawasulkan qad yu-addii waxaa laga yaabaa qofka inuu gaarsiiyo lishirki shirkiga. wadaalika kaasna wuxuu ku dhici karaa idaa ictaqada hadduu ictiqaadiyo ana allaha subxaanahu watacaala allah subxaanahu watacaala muxtaajun inuu u baahan yahay liwaasitati basharin bashar in loo maro, in waasita looga dhigo bashar loo maro, kal amiiri sidii amiirka oo kale, walxaakim iyo xaakimka. liannahu maxaa yeele shabaha wuxuu ku shabahay alkhaaliqa allah subxaanahu watacaala khaaliqa bilmakhluuq makhluuqaadka ayuu ku shabahay wey. meeshan wuxuu leeyahay tawasulka qofka inuu ku tawasulo bijaahi muxamed, inuu yihahdo allah subxaanahu wataala inuu ku yihahdo maxamed wejigiis waxaan igu sii, maxamed sababtiis waxaan igu sii inuu yidhaahdo, taas lama ogolo. waayo taas waa bidco. waayo saxaabada oo nabiga sala allahu calayhi wasalam ka dambeeyey maysan sameynin, nabiga xilligiisa maysan sameynin. ama cumar uu ku tawasulay cabaas asigoo nool ducadiisa, markuu wuxuu yidhi ilaahayow nabigeena sala allahu calayhi wasalam markuu joogay asiga ayaan kugu tawasuli jirnay, hadda wuu geeriyooday, marka ducada cabaas uu ku baryay uu ku tuugay sababteed waxaa nagu siiya. marka
marka cabaas wuu noolaa xilligiis, asagoo cabaas nool ducadiisa ayuu ku tawasulaya. taasna way banaan tahay. qof hadduu qof wax uu baryo, mathalan tusaalahan adiga haddii walaalkaada aad wax u duceyso, aad u tuugto Allah subxaanahu wa tacaala, aad u tuugto, walaalkaadan uu yidhaahdo ilaahiyow walaalkay hebel ducada iu tuugay, ilaahiyow taas sababteed wax igu sii, inaad tiraahdo way ku banaan tahay. sababta walaalkaada ducada uu sameynaya waa camal wanaagsan walaalkaada uu qabtay wey. wuxuu yidhi marka cumar xilligaasi muusan ku tawasulin nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu geeriyooday. tawasulkan qofka markuu geeriyoodo in lagu tawasul yiraahdo waxaas in lagu tuugo Allah subxaanahu wa tacaala asagoo loo marayo qofkan geeriyooday, waxayba noqon kartaa ay geysan kartaa qofka shirka ay ku ridi kartaa. waayo markuu ictiqaadiyo Allah subxaanahu wa tacaala inuu u baahan yahay in qof loo maro, Allah subxaanahu wa tacaala in qof loo maro uma baahno, adiga toos u tuug wey. sidii amiirka oo kale ama xaakimka, qofka amiirka uma taga kartid, qofka xaakimkan uma taga kartid ilaa qof aad u maraysa. markaas oo kale wuxuu ku shabahay Allah subxaanahu wa tacaala makhluuqiisa ayuu ku shabahay. waxaa la doonaya qofka muslimka inuu ka fogaado oo Allah subxaanahu wa tacaala toos u tuugo wey. wayr walimacrifati almasiid, ogaasho intaas ka badan haddii la doonayo oo min atafaasiil ayagoo faahfaahsan, wa adilati hada almawduuc iyo mawduucan adiladiisa, yuraajic waxaa loo noqonayaa risaalada uu qoray Sheekhul Albani raximahullah raxmatan waasica oo ugu magac daray atawasul wa axkaamuhu wa anwaacuhu. tawasulka iyo axkaamtiisa iyo anwaacdiisa ugu magac daray. risaaladaas ha looga noqday uu leeyahay qofkii doonaya wax masiid ah.